أنا هدانا قدومي قبل كأوضل وحنو يمده هرمر إيا النبض وردي كورتي ما تم حتى رادين دروت شيء قد ما يبرتين ويسكير ديني مسجد عباد الرحمن وتم حد لقول لقنا علوم الدين الإسلام كا ayaa laga daafuray xaafadda Sheekh Cashmaan ee galbeedka Boorama gaar ahaan New Boorama waxaana salaadii Jimcaha ee maanta kula tukaday bulshada xaafadaasi oo aad u soo dhaweeyay masaajidka culimada Boorama qaarkood culimo ka yimid magaalada Hargeysa waxgarad waalidiin aqoonyahan salaadiin dhalinyaro barashaabada gobolada Awdal iyo Maroodi Jeex isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland ee gobolka Awdal waxgarad iyo shacabka xaafadda markii loo oogay salaada Jimcaha waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Cabdicasiis Xasan Daahir oo kamid ah culimada Boorama Sheekh Cabdicasiis Ibrahim Kaahin oo ah injineerkii masaajidka dhisay Sheekh Rashiid Maxamuud Cige oo kamid ah culimada magaalada Hargeysa iyo sidoo kale eegas xildhibaan Maxamed Muumin Kacab oo kamid ah odayaasha xaafadda laga daafuray masaajidka walaalayaal mashruucan ka kooban masaajidkan iyo macadkan waxa hirgeliyay oo halkan ka dhisay sheekh kamida dadka muxsiniinta ayaa ka soo shaqeeyay oo halkan in masaajidku ka dhismo khayr Allah siiye ka howlgalay waa Sheekh Maxamed Cabdullaahi Guuleed sheekh imaaraadku degan yahay dad muxsiniin ku xidhan yahay dadka muxsiniinta ayaa kolba baahiyaha jira oo bandhiga iyaguna khayr Allah siiye way la qaataan waxa masaajidka halkan keenay oo goobtan iyo magaaladeenan iyo xaafadeenan u soo dooray sheekha aan kelmadda siin doono Sheekh Cabdulcasiis Ibrahim Kaahin ayaa u dooray in halkan laga dhiso mashruucan isa saaran ka kooban مساجد كي معك شيخ عبد العزيز إبراهيم كاهن ماها مشروعي كوبات أو كهر جليو مقالة ذينا وحكوه الرئيي لا مشروع وعين كانوا كلا يدل حكوية الله حافظ حدي مشروع على بعض نوع حكوية الله حافظ السيبيريا لا مشروع هره آديات بالله انتفاعي ولا فائدي أرضي حفاظة oo kalaamkii Ilaahay xifdiday ayaa ka soo baxday markaskanna iyo macadkan iyo masaajidkan wada socdana waxaan rajayn doonaa isagana in laga faa'iideysan doono oo lagu intifaaci doono waxaynu Ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu u weydiinaynaa inuu ka abaal mariyo mashruucan waxa weeye marka aad iyo aad u qiimaha leh cidii ugu horeyn waxa weeye marka bixisay ee lacagtiisa waxa weeye ku bixiyay iyo cidii waxa weeye marka ka soo dhameysay oo Sheekh Cabdalla Guuleed waxa weeye marka Sheekh Maxamed Cabdalla Guuleed Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr siiyo iyo dhamaan cidii fududeysayba walaalayaal haddaan inta hoos uga soo dego mashruuceenan waxaanu u doornay inuu xaafadeenan ahaado anigoo afka ku hadlaya waxa weeye marka cidii fulisay iyo cidii marka waxay hawsha waday anigoo ahaa mashruucaas oo ka kooban masaajidka aynu arkayno waxa weeye masaajidka aynu ku jirno iyo marka wuxuu kale ka kooban yahay waxa weeye 7 galaas oo kale oo midi waxa weeye masaajidka marka uu la socdo iyo waxa weeye marka 6 kale ayuu marka ka kooban yahay madrasadu waxa weeye 2 suuli bay wadataa masaajidku waxa weeye 3 suuli buu wataa makaankii lagu weysaysanayay waa mashruuc dhameystiran oo waxa weeye marka waxba aanay ka maqnayn waxa inta noo sii dheer inaanu waxa weeye marka camirnay wax laaliyo wax masaajidku u baahnaa inaanu dhignay gogol haday tahay haday shay kasta tahay maca kitaabadii quraanka la akhrisanayay shay kamida oo imaka waxa weeye ka dhimani alaan ma jiro waxa weeye dhinac walba markaanu ka eegnay kulli waa waxyaabaha Ilaahay mahadi waxa weeye markaanu aad ugu dadaalo masaajidada aan dhisno inaana waxba cidna uga baahano masaajidada badan iyagoo qabiya ama gogashu ka maqan tahay ama kala dhiman ayaa laga tagaa ismihii waxa weeye waa la dhameystiray oo wax idin ka dhiman ma jiro maca qalabayntiisii waxa kale noo sii dheer madrasada marka galaasyadeedii inaanu qalabaynay qaybo kamida inaanu xafiiskii waxa weeye u qalabaynay waxa weeye marka madrasadu ay lahayd marka si aan waxba loogu baahanay waxa weeye dadku ay marka wax weeye waxna loogu dhigto waa fadli Ilaahay iyo dheeraad Ilaahay
in halkaa masaajidkaas iyo buqcada barakaysan in laga dhiso ilaahay tabaaraka wa tacaala baa doonay alxamdulillaah ilaahay baa mahadle tabaaraka wa tacaala walaalayaal masaajidku dee fadli fara badan buu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi axabul bilaadi ila allaahi masaajiduha ilaahay dhulka oo dhan wuxuu ugu jecel yahay waa masaajidada ugu jecel yahay wuxuu ugu necab yahay suuqa iyo aswaaqda ayuu ilaahay ugu necab yahay marka culimadu waxay yiraahdeen masaajidka de waa dikrigii ilaahay iyo salaadii iyo quraankii baa lagu akhriyay haddii la idin dhisay guriga ilaahay maxad le madrasada le masquula le meel walba le waxa idinku waajiba idinkuna xafidaadii aad xafidan lahaydeen sida aad u ilaashan lahaydeen nasiibka wanaagsan ilaahay idin keenay sida aad u asturi lahaydeen sida aad u dhaqaalaysan lahaydeen sida aad wax ugu dhigan lahaydeen ilmihiina iyo idinkuba uga faa'iideysan lahaydeen sheekha masaajidka dhisay Sheekh Cabdicasiis haddii la yiraahdo beertaydana mid buu ka dhisay sitay xaddi mid kale waa kii la sheegay magaalada ilaahay ajrigeeda ha siiyo intaba waxa la inooga baahan yahay mar haddaan ka mid ahay odayada xaafadan ku dhaqan inaan masaajidka camirno la inaga doonay inaga inaan masaajidka camirno oo dikriga ilaahay ku camirno saasoo kale ku camirno cibaadada ilaahay ayaa la inooga baahan yahay waxa kale oo inooga baahan yahay inahay xaafada inaynu ka soo qayb galno dhammaan maxadka la furayo ee lagu baranayo culuumta diinta islaamka ee u horeeyo quraanku inaan isagana ka soo wada qayb galno ayaa dhamaantii la doonayaa oo ardaydeena iyo mataqa caruurteena dhammaan aynu keenno say u bartaan diinta islaamka iyo waxyaabaha la xiriira dhamaanteed intaa kadib munaasabada waxa soo afmeeray barasaabada Awdal iyo Maroodi Jeex iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta gobolka Awdal masaajidkan Cibaadu Raxmaan ee laga furay xaafadda Sheekh Cismaan waliba qaybta maanta uu ku yaala way ayaan badan tahay adduunyadu waa wada nasiib weey marka xaafadani waxay nasiib weyn u heshay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu deeqo hadiyadan uu soo diray ee ilaahay u keenay halkan maalintii aan dhagax dhigay oo iibinayay Sheekh Cabdilcasiis in halkan diiwaan gelinay de meel iska kharab waa iska dhul ilaahay maantana waydiga arkaya ilaahay sidoo camiray waa taasi waxa weeyaan nasiib dheeraad oo xaafadu heshay xaafada waan ku hambalyeynay waxaan leeyahay inaan la kulmo Allah idii barakeeyo inay se gaar ka qabtaan ilaaliyaan ka ku cibaadaystaan camiraan iyaga ayaa looga baahan yahay waxaynu ducaynaa muxsinkii soo bixiyay masaajidka lacagtiisa kii ka soo qaaday kii dhisay iyo mid kasta oo arrin iyo adduun iyo gacan ba ku taageero wax ku darsadayna waynu ducaynaynaa waxaan leenahay Ilaahay ha u saaro miisaanka xasanaadka ha ugu daro sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo daahfurka masaajidkan muxsiniintu soo bixisay iyo intii kale ee garbisay ee juhdiga gelisay ee garbaa u ahayd muxsinkii lacagta soo bixiyay ee buddigay masaajidka Sheekh Cismaan u baahnayd inkastoo masaajidda badan jiraan haddana masaafada uu jiray dadka salaada subaxa imanaya ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ninkii buddiga arinkaas waxaan ilaahay ka bareenaa inuu keena anfaca ka dhigo ilaalin iyo daryeel buu inooga baahan yahay reer Sheekh Cismaanow wuxuu inooga baahan yahay in la ilaaliyo nadaafadiisa sidoo gudoomiyihii iga horeeyay sheegay nadaafadu dhinac walba way gashaa nadaafada ha la ilaaliyo warbaahinta Cishqi TV Boorama